الله الرحمن الرحيم magacaygu cabdirasaaq axmed jaamacad oo mahadsantiin warbaahinta dalmar media waxaan jeclahay inaan fikrad yar oo kooban kaga hadlo shirka dhawaan ka dhici doona magaalada Garowe aad iyo aad baan waxaan marka hore u bogaadinayaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo shirkan gogoshiisa fidiyay ayna ajiibeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ah runtii waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo sida la rabay wixii la rabay inay ka soo baxaanin ummadda Soomaaliyeedna u noqoto ay ugu yeelaneen dhammaan waxyaalaha baahida oo maanta la tabayay inay ka soo baxaanin sababta uu shirkan muhiim u yahay waxa kamid ah dadka Soomaaliyeed inay isku fahmaan habka dowladda dhexe ay raadinayaan meesha ay u socota oo aysan taladu noqon in hal qof uu meel wax u farmanoqsado oo ay isaga socoto iyadoo dadka iyo dalka lagu dhaqayo dastuurka la dejiyay ee lagu dhaqayo oo amoodada dartaan dowladda dhexe inaysan wax badan aysan dastuurka ay bulshada ku heshiisay aysan xeerinayn dowladda Puntland markasta waxay u taagan tahay 20 sano oo ay dhisnayd maadideeda waxa kamid ahayd inay raadiso dowlad Soomaaliyeed inta laga helayo shirkan ma shirkii ugu horeeyay Garowe lagu dhigayo saddex xusuutan Garowe iyo shirar badan oo ka horeeyay oo halka lagu qabtay sababta inta dadka reer Puntland iyo maamulkooda iyo madaxdooda ay u raadinayaan waxay ahayd in dowlad dhexe oo xoog leh oo dadka midasha oo wixii la qortay oo dastuurka oo lagu heshiiyay raacda oo taabagelisa in la helo wali waxay u taagan tahay Puntland inay raadiso hayaanka noocaas oo ay ku jirtay si dhalaanka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay helaan in dowlad la wada leeyahay oo lagu heshiiyay oo ixtiraamta waxa lagu heshiiyay oo la qortay dadka reer Puntland waxaan ka codsanayaa markasta iyo meel kasta ay joogaan inay dowladooda sida ay u garab taagan yihiin ay markasta ula shaqeeyaan Soomaalida kalena waxaan ka codsanayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay cashar ka bartaan Puntland hanaanka ay u jirto iyo sida dadkeeda iyo dowladooda isugu duumayeen madaxda federaalka sidoo kale waxa dowladda dhexe waxa ku jirto oo ku taagan oo ay ku shaqeyn karto waxa weeye waxa loo yaqaan nidaamka lagu heshiiyay oo la raaco hadii nidaamka lagu heshiiyay laga leexdo taas waxay noqonaysaa in meesha ka baxayso gebi ahaanba wada shaqeymaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyada la rabaa markasta inay wixii lagu heshiiyay ay raacdo hadii iyadu ay ka leexato oo ay bilowdo dadka maamul goboleedyada u bilowdo hada markaas waxay noqonaysaa geel waxa la yiraahdo uu wanaagsan durduriso daqaalmuhu sidoo kale waa durdurayaan marka meeshii maamul goboleedyada ay dowladda isku wadi lahayd in iyadu u warduriso oo khaladaadka ugu waaweyn ay samayso iyaduna ma ahan marka shirka Garowe waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxaan anagoo ku kalsoon waliba in halka la isku la fahmi doono waxa khaldan meesha loo socdo halka laga yimi iyo waxa la xigsanay dalka uu xigsanayo in la isku fahmi doono wixii ka soo baxa in la taabageliyo cidii taabagelinteeda marka diido in lagu la xisaabtamo hadii inaan 30 sano la isu jiidanayo waxa muuqata meesha loo socdo in wali ay dad badan u caday dadka reer Puntland transulka markasta waa ku mahadsan markasta inay dowladda Soomaaliyeed raay sababta goosha loo dhigay halkaan Garowe loo dhigay ma dan ay reer Puntland leeyihiin waa dan ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed ay leedahay danta ummadda Soomaaliyeed qof kasta inuu fahmo raba sida reer Puntland ay rabaan in dowlad la helo in dowlad dhexe ay jirto in maamulada sida u dhismaadaan in la helo waxa la rabaa Soomaalida inta kale inay sidaas u fahanto hadii sidaas aan loo fahmin waxa ka dhigmaysaa qof kasta meeshu rabo marka inuu wajahada u banaan markaas inuu ofurto صدق سنة إن ولي لسجيتو ولي لسكون لقيه هاي وهم قدر لسكون فاهمنا تاس معناه هذا وحنا قلنا ساعة هدي السيدة اللي جوسي ترى إن المستقبل كحضايب ترشوا مركا وإيمان دونا مركا سمادي تذكر الله أساسي روحوا إند بلوسي فيرين مركا تذكر البنت لنا وحنا كعصنا يا أنتوا شركة سعودة يا مركز تبع ولا شقين جود أمني سيد دولد أمني أسوسه وقف قاعدنا سعودين تمام وجهك فرن عمر كاست لو يقان مدير Puntland in la sii laba jibaaro halka waxa joognaan oo qof kasta Soomaaliya yimaada inaan tusno jacayl iyo marxabayn iyo soo dhaweyn fiican oo lagu yaqiinay iyo markasta inaan naado Soomaalida u taagan inaan markasta u muujino sidaas waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka oo si guud markasta arkaysan inay ugu helayeen in dadkaan wax bartaan mustaqbal helaan dhalaankooduna uu noqdo kuwa sii jira oo dadiyuga caalamka la tartama si iyaguna sida ugu dadaalaya ma xarnaan inaguna u garab istaagno la shaqeyno meel kasto ay joogaan aanu siino xogaa kala duwan amniga lagu taageeri karo aad iyo aad baan u mahadsantiin waxaan doonayaa inaan intaas ku soo gabagabeeyo hadalkayga kooban
waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.